Bismillahirrahmanirrahim waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah kaas oo aan uga hadli doono wadamada Afrikaanka ah ee noqon doona 10 sano soo socda barwaaqo sooran ama noqon doona kuwa ugu xoog badan dhanka militariga marka la eego isbedelada xawliga ee ka socda qaaradda Afrika khubarada dhaqaalaha iyo falanqeeyaasha difaaca ayaa saadeelanaya in 10 sano ee soo socda ay soo bixi doonaan 5 wadan oo noqon doona udub dhaxaadka awoodda militariga iyo barwaaqada dhaqaalaha ee qaaradda Afrika 10 sano ee soo socda isku xirnaanta tiknoolajiyada casriga ee kheyraadka dabiiciga iyo maalgashiga difaaca ayaa bedeli doona miisaanka awoodda ee gobolka hadii aynu fiirino kaalinta shanaad ku jiro Morocco waxa lagu naanaystaa wadanka isku xira midowga Yurub iyo Afrika Morocco waxa ay si aamusan u dhisatay awood weyn oo dhanka diblomaasiyadda militariga dhaqaalaha hadii aynu fiirino dhinaca militariga iskaashi dhow ay la leedahay Mareykanka iyo helitaanka tiknoolajiyada waxa loo yaqaan diyaaradaha droneska ayaa ka dhigay ciidankeeda mid aad u casri ah hadii aynu fiirino dhinaca dhaqaalaha waxa ay noqotay xarunta ugu weyn ee abuurta ama lagu sameeyo baabuurta iyo hogaamiyaha tamarta cusub ee loo yaqaan green energy wadanka kaalinta afraad ku jiro waa Koonfur Afrika waxa lagu naanaystaa xarunta horumarka Koonfur Afrika waxa ay wali haysataa kaabayaasha ugu casrisan ee dhanka difaaca iyo dhaqaalaha hadii aynu fiirino dhinaca militariga waxa ay caan ku tahay soo saarista hubka casriga ah taas oo u ogolaanaysa inay isku filnaato dhanka dhaqaalaha iyadoo qayb weyn ka ah kooxda loo yaqaan BRICS Koonfur Afrika waxa ay albaab u tahay maalgashiga caalamiga ah ee ku socda koonfurta qaaradda Afrika dhageysto wadanka kaalinta saddexaad ku jira waxa uu noqday Ethiopia wada cusub ee bariga Ethiopia waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyay muujisay hami weyn oo dhanka awoodda gobolka hadii aynu fiirino dhinaca militariga dhismaha ciidan badeed iyo ballaarinta awoodda difaaca ayaa Ethiopia ka dhigaysa mid saameyn xoogan ku leh geeska Afrika dhinaca dhaqaalaha biyo xireenka weyn ee Gared iyo mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ayaa Ethiopia u rogi doonta warshad weyn oo soo saarta korontada iyo wax soo saarka caalamiga ah dhinaca kala horeynta kaalinta labaad waxa soo fadhiistay wadanka loo yaqaan Nigeria waxa lagu naanaystaa matoorka galbeedka inkastoo ay jiraan caqabado waaweyn ee haysta dalka Nigeria wali waxa ay tahay dalka ugu dadka badan taas oo horseedaysa koriimo dhinac kasta hadii aynu fiirino dhinaca militariga casriyeynta ciidamada lugta iyo kuwa hawada si looga hortago khasaaraha gudaha ayaa kor u qaadi doona khibradda dagaalka ee dalka Nigeria dhinaca dhaqaalaha iyadoo laga gudbayo ku tiirsanaanta saliidda Nigeria waxa ay noqon doontaa xarunta tiknoolajiyada casriga iyo ganacsiga dhijitaalka ee Afrika wadanka kaalinta koobaad ku jiro waxa loo yaqaan Masar ama Egypt libaaxa waqooyi ayaa lagu naanaysaa Masar waxa ay si ahaan doontaa booskeeda hadda ay hogaanka ugu jirto dhinaca Afrika wadanka ugu militariga fiican gaar ahaan quwadaha Afrika dhinaca militariga hadii aynu fiirno maalgashiga xadaafka ah ee dhanka badda iyo difaaca hawada ayaa ka dhigaya quwad aan la tartami karin dhinaca dhaqaalaha mashruuca weyn ee Suez Canal iyo economic zone iyo magaalooyin cusub ee aqliga ku dhisan ayaa Masar ka dhigaya xarunta caalamiga ama xarun caalami ah oo ganacsi iyo dhinaca warshadaha